بسم الله الرحمن الرحيم هبين وناكسن داوديال كسو دواada barnaamijka wararka caawa qodobada barnaamijka caawa aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah militariga Iiraan oo galay feejignaantii ugu sareysay iyadoo magaalooyin kala duwan la dhigay gantaalada weerarka iyo kuwa difaaca Mareykanka oo qaar ka mid ah muwaadiniintiisa kala baxaya saldhigyada uu ku leeyahay bariga dhexe xilli cabsi weyn laga qabo dagaal balaaran ugu yaraan laba qof oo lagu dilay iyo tiro kale oo lagu dhaawacay weeraro hor leh oo Israa'iil ay ka geysatay marinka Gaza Hamas oo wada hadallo ku aadan mustaqbalka iyo maamulka Gaza qaahiro kula leh dhexdhexaadiyaasha colaadda Gaza kumanyaal kun oo qof oo isugu soo baxay magaalada Tehran iyadoo la aasiyo ciidamadii lagu dilay banaanbaxyada rabshadaha wata ee ka socda dalkaasi iyo Ruushka oo Mareykanka ku eedeeyay inuu dunida ka wado qalalaase iyo sharci jabin dhamaan qodobadaas iyo kuwa kale iyo wixii nagu soo kordhay intii hawadan ku jirno iyo qaybtii falaqaynta ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka soo dhawaada mar kale daawadayaal maxamed maxamuud cade oo wararkan soo duway ay qadka ku jira maxamed maxaa ugu waaweyn wararka caawa militariga Iiraan ayaa sheegaya in ay diyaargarowkii ugu xoog badnaa ku jiraan waxayna isu diyaarinayaan colaad kasta oo timaada hadalkaasna waxaa sheegay abaanduulaha ciidamada ilaalada kacaanka gantaaladii kaydka ahaa ayaa la kordhiyey marka la barbar dhigo 12 dagaalkii dhacay bishii Juun sidii diyaarka loo ahaa si ka weyn ayaa diyaar loo yahay dagaalkaas oo Israa'iil la galay meelihii la burburiyey iyo meelihii ay waxyaalo gaareen oo dhan waa la dayactiray ciidankana hadda waxa uu ku jiraa diyaargarowkii ugu weynaa Sadaar Musabi ayaa laga soo xigtay waxaana soo xigatay wakaaladda wararka ee rasmiga ee waddanka Iiraan gantaaladii kaydka ee waddanka Iiraan ayaa tiradooda aad u kordhay wixii ka dambeeyay dagaalkii 12 maalmood ee Israa'iil la galay sanadkii la soo dhaafay ee Mareykanka saana waxaa yiri ciidanka ilaalada kacaanka ninka u qaabilsan xagga difaaca cirka Majid Musabi warbaahinta iyadoo soo xiganaysa ayaa waxaa la sheegayaa arrimahan inay ka dambeeyeen markii uu madaxweynaha Mareykanka ku hanjabay inuu faragelin sameynayo iyadoo waddanka Iiraan ay mudaharaad ka socdaan waxa uu yiri taliyaha waxaan joognaa buu leeyahay heerkii ugu fiicnaa ee diyaargarowga Musabi ayaa waxaa soo xiganaya warbaahinta waddanka Iiraan waxaadna moodaa in nidaamka difaaca cirka uu bishii Juun diyaargarowgeeda mid ka fiican hadda ku jiro waddanka Mareykanka ayaa ciidamadiisa kala baxaya saldhigyada muhiimka ah ee ku yaala gobolka bariga dhexe isagoo ka taxadaraya xiisadda sii kordhaysa ee gobolka ka jirta ee lagula jiro waddanka Iiraan sidaana waxa uu sheegay saraakiil Mareykana qaar ka mid ah warbaahinta wadamada reer galbeedka iyagoo magacooda qariyay wararka soo baxaya ayaa tilmaamaya in mas'uuliyiin sare oo Iiraan ah ay u sheegeen wakaaladaha wararka reer galbeedka qaar ka mid ah in Iiraan ay digniin u jeedisay wadamada dariska ah oo martigeliya saldhigyada Mareykanka haddii Mareykanka saldhigyadiisana la soo weeraro in ay iyaguna weerari doonaan saldhigyadaasi marsii horeysay qaar ka mid ah la taliyayaasha ayaa u sheegay militariga waddanka Mareykanka ee ku sugan xerada ugu weyn ee militariga ee Qatar ku taala Al Udeyd la yiraahdo in ay ciidamadooda kala baxaan Al Udeyd waxaa jooga ciidan ka badan 10,000 ka hor inta aanan ciidamada Mareykanku ay weerar ku qaadin bishii Juun waddanka Iiraan ayaa qaar ka mid ah shaqaalaha laga bixiyay xeradaasi militariga ee ku taala Qatar 10,000 oo dad barooranaya ayaa isugu soo baxay wadooyinka magaalada Tehran meel ku dhow jaamacadda Tehran iyadoo saraakiishii laga dilay ciidamada ammaanka ee rabshadaha lagu dilay meydkooda oo calanka Iiraan lagu soo daday iyo sawiradoodii iyo ayagoo sita sawirka hogaamiyaha ruuxiga waddanka Iiraan Ali Khamenei ayaa wadooyinka maraya waxaa sidoo kale la sheegayaa dad badan inay isugu soo baxeen oo xabadka garaacaya oo ka jawaabay baaq uu jeedinayo nin ku heysaya heesaha wadaniyadda ee waddanka Iiraan
dadka xuquuqda u ololeeya ayaa sheegaya kumayaal qof in ay dhinteen 2 toddobaad ay rabshaduhu socdeen hasaatee cid madax bannaan oo wararkaas xaqiijin karta ma jirto militariga Israa'iil ayaa 2 Falastiiniyiin dilay qaar kalena dhaawacay weerar ay ku qaadeen goobo kala duwan oo marinka Gaza ka mid ah weli waxaa socda Israa'iil inay xadgudub ku sameynayso xabad joojinta ilaha caafimaadka ayaa warbaahinta u sheegay in nin kalkaaliye caafimaad ahaa xatam Abu Salih la yiraahdo in la keenay meydkiisa Nasir isbitaalka la yiraahdo ee ku yaala Khan Yunis natiijadana dhimashadiisana waxay timid duqeyn ay ciidanka loo yaqaan madaafiicda goobta ama artilleriga ay la dhaceen meelo ka mid ah xaafadda Bani Suhayla ee bariga magaaladaasi ilaha war caafimaadka ayaa sheegaya Abu Suhayla in uu ahaa kalkaaliye caafimaad oo ka shaqeeya isbitaalka Nasir markii horeysay ciidamada Israa'iil ayaa dilay qof labaad asagoo ku dhow deegaanka wadada la yiraahdo Bani Suhayla ee bariga Khan Yunis saraakiisha Xamaas ayaa sheegaya in ururkooda ay wada hadal la fureen dhexdhexaadiyaasha Mareykanka dhexdhexaadiyaasha Masar waxaana shirkaas ka bilowday magaalada Qaahira waxaana lagu abuurayaa guddi maamuli doona marinka Gaza oo lagu saleynayo hindisihii uu madaxweynaha Mareykanku uu soo jeediyay ee la xiriira marinka Gaza qodobadii 20ka ee madaxweynaha Mareykanku uu soo jeediyay bishii Oktoobar ayaa Gaza waxaa maamuli doona baa leeyahay guddi madax bannaan oo Falastiiniyiin ah oo hoos tagi doona guddiga nabadda oo uu gudoomin doono madaxweynaha Mareykanka laftirkiisa kulankan ka dhacaya Qaahira ayaa wuxuu u dhaxeeyaa wafdi ka socda Xamaas iyo dhexdhexaadiyaasha Mareykanka dhexdhexaadiyaasha Masar ujeedaduna waxay tahay sidii wax looga qaban lahaa ama looga hadli lahaa guddigan la abuurayo waxaana laga hadlayaa arrimaha farsamada sida uu mas'uul sare oo ururka Xamaas ka tirsan u sheegay qaar ka mid ah warbaahinta wararka caalamkana waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda ee wadanka Ruushka Sergey Lavrov ayaa sheegay in dowladda Mareykanku ay hadda ka shaqeynayso inay burburiso nidaamkii caalamiga ah ee dowladda Mareykanku gacan ka geysatay in la dhiso wixii ka dambeeyay dagaalka labaad ee adduunka waxa uu sheegay howlgallada ay wado inuu yahay mid qaanuunka khilaafsan oo ay ku afgambisay madaxweynihii Venezuela Nicolas Maduro haddana ugu hanjabaysa Iran inay weerar ku qaado Lavrov ayaa sheegay in howlgallada dowladda Mareykanka ay ku qabatay madaxweynihii wadanka Venezuela oo ahaa mid xadgudub ku aqooninta caalamiga Ruushkana inay ka go'an tahay heshiisyadii uu la galay dhammaan wadanka Venezuela ay xulafo dhow yihiin Lavrov ayaa hoosta ka xariiqay in mabaadi'dii qawaaninta caalamiga ahaa in Mareykanku uu ka baxo inay waxyeello u geysanayso sumcadda uu caalamku ku leeyahay وهاجا سو دوادا مركله داوديال waxaan goordho u gudbaynaa qaybta labaad ee falaqaynta ee barnaamijka balse intaan u gudbin qaybtaasi aan ku hakano qadar xayisiisa dawada markale daawadayaal wali waxa daawanaysaan barnaamijka wararka caawa haatan waxaan soo gaarnay qaybtii falaqaynta ee barnaamijka maxamed aan ku bilowna falaqaynta maxay ka macno tahay heeganka ay galeen ciidamada Iran diyaargarowga ciidamada Iran oo ay ku sheegeen inuu yahay diyaargarow ka fiican kii la galay weerarkii Israa'iil iyo Mareykanka ay ku qaadeen wadankaasi bishii Juulaay ee sanadkii 2025 waxaana la dayactiray baa yiri dhammaan meelihii waxyeeladu gaartay Iran waxaad moodaa hadda in ay u heelan tahay in ay xadgudub haddii lagu sameeyo ama la soo weeraro in ay si weyn uga jawaabi doonto arrintan waxaad moodaa inay hordhac u tahay iyadoo Mareykanka dhinaciisa madaxweyne Trump la filayo inuu wada tashi la yeesho guddigiisa amniga qaranka waxaana laga hadlayaa khiyaaraad oo ay ka mid yihiin tallaabooyinka military nooca ay noqon doonaan iyo khiyaar diblomaasiyadeed hadduu jiri karo haddii kale laakiin dhinaca Iran waxaa ka go'an Mareykanka inay iska difaacdo waa gartay isla arrimaha Iran iyo bariga dhexe maxaa lagu fasiri karaa digniinta Iran oo dirtay dalalka gobolka haddii lagaga soo weeraro warar soo baxay ayaa sheegay Iran inay digniin u jeedisay wadamada martigeliya
saldhigyada military ee Maraykanku ku leeyahay bariga dhexe haddii saldhigyadaasi laga soo weeraro waddanka Iiraan in dowladda Maraykanka saldhigyada ay ku leedahay wadamadaasi la weerari doono. waxaa sidoo kale hadalka loo dhigay in dowladda Iiraan ay u sheegtay wadamada ay ka mid yihiin Saudi Arabia, Imaaraadka iyo Turkiga haddii saldhigyada Maraykanka uu dalalkooda ku leeyahay in la weerari doono haddii ay weerar ku qaadaan Iiraan, waxayna weydiisteen dalalkaasi in ay ka hor istaagaan Maraykanku inuu dalalkooda weerar ka qaado. mas-uul sare oo Iiraani aanu magaciisa la sheegin ayaa wararkan u sheegay warbaahinta. hadalladana waxay kusoo beegmayaan iyadoo madaxweynaha Maraykanka uu ku hanjabayo inuu tilaabo military ka qaadayo waddanka Iiraan haddii aan la joojin mudaharaadyasha dhiigga laga daadinayo. waa sida hadalka loo dhigay. waxaa iyadana soo baxaysa oo nin khabiira oo arrimaha Iiraan la faguro hadalka u dhigayo, ma aha oo keliya in Iiraan ay digniin u jeedisay wadamadaasi. waxay u sheegtay haddii Iiraan dagaal haddii uu Maraykan kusoo qaado danihiisa meel kasta ay yaalaan bariga dhexe in la gubayo. wadamada gacanka waxaa muuqata sida uu khabiirkaasi hadalka u dhigay Iiraaniga ah in aynan xakameyn karaynin Maraykanka iyo waxyaabaha uu sameynayo. sababta Iiraan ay u weeraraysana waxa uu ku tilmaamay inay tahay xeryahooda Maraykanka xeryahooda inay ka madax bannaan yihiin wadamada ay martida u yihiin, waxay doonaan ay sameyn karaan. taa ayaa keenaysa in Iiraan ay tallaabo ka qaado Maraykanka iyo xeryihiisa militariga ee ku teedsan bariga dhexe. waa gartay. dhinaca kale waxaa la sheegayaa in banaanbaxyadii hadda nuxuuseen arrinkaasi inooga waran. Fuaad Izadi oo professor ka ah jaamacadda Tehran ayaa sheegaya mudaharadayaashii ka mudaaharadayay ama isu soo baxayay waddanka Iiraan inay u muuqdaan in hadda arrintooda la xakameeyey oo wax rabshado ah dhowrkii maalmood ugu dambeeyay inaysan dhicin. maana arkin buu leeyahay 48 saac ilaa 72 saac la soo dhaafay wax mudaaharaadyo ah oo dhacaya. waxaana muuqata buu leeyahay arrinta internetka in ayadana xanibaad lagu soo roogay oo lagu xiriirinayo tallaabooyin walwal xagga amniga ah. wuxuuna ka hadlay bishii Juun 2025 in dagaalkii Israa'iil ay internetka isticmaashay. ciidanka sirta ee Mossad dad ka tirsan ayaa kaabayaasha internetka Iiraan u isticmaalayay isgaarsiin oo waxa ay samaysteen goob ay ka hagaan dadka oo mar dambe la helay. waxaana muuqata Zadi sidoo hadalka u dhigayo tirada mudaharadayaasha toogtay ciidanka booliiska iyo dadka dukaamada gadanaya ayaa sawiradooda hadda muuqda. dukaanleyda sababaha loo toogto waxa weeye waxay diideen inay ganacsigooda xiraan markii mudaharad socday. haddana waxaad moodaa xataa inaynan ka xishoonayn dadkii ganacsatada ah in ay laayaan. waxaa ayadana isu soo taraysa in mudaaharaadkooda sababaha hoos u dhigaysa inay tahay waxaa isu soo baxaya oo ayagoo malaayiina soo baxaya dadkii taageersanaa xukuumadda, dadka marka mudaaharaadyada sameynaya ee dowladda kasoo horjeeda iyo dadkaasi hadday isfara saaraan meeshaasi waxaa ka dhacaysa ba iyo hoog, sababtoo ah aqlabiyad aad u ballaaran ayay kusoo baxayaan dadka dowladda taageersan sida ilaha qaar lagu sheegay. waa gartay. waxaa soo baxaysa in Shiinuhu uu ka digay in la farageliyo arrimaha gudaha Iiraan. arrinkaasi inooga waran. Shiinaha waxa uu kasoo horjeedaa faragelin dibadda ah in lagu sameeyo arrimaha gudaha ee waddanka Iiraan, sida wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Iiraan ay hadalka u dhigayso. wixii ka dambeeyay Donald Trump markii uu digniin ku bixiyey in dowladda Maraykanka laga yaabo inay tallaabo xoog leh ka qaado waddanka Iiraan, waxaa soo kordhaya in Shiinaha uu taageerayo kuna rajo weyn yahay in xukuumadda Iiraan iyo shacabkeeda ay ka soo kabtaan dhibaatadan, isla markaasna xasiloonida qaran la ilaaliyo. Mao Ning oo afhayeen ah wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Shiinaha ayaa shir jaraa'id ka sheegay in hadallada Trump mar wax laga weydiiyey in waqtiga la jooga Shiinaha uu kasoo horjeedo in awood dibadda ay faragelin ku samayso arrimaha gudaha ee waddanka Iiraan. annagu ma taageerina buu yiri in xoog iyo hanjabaad xiriirka caalamiga lagu isticmaalo. dadka mudaaharaada ee waddanka Iiraan
Trump ayaa waxa uu sheegay in uu ka fakerayo ama ka baarandegayo inuu tallaabo xoog la qaado iyadoo militariga laftirkoodana ay ka baarandegayaan wixii ay samayn lahaayeen. waxaa sidoo kale socda khiyaaraad aad u fara badan oo lagu go'aamin doono waxa dowladda Mareykanku ay yeelayso, laakiin Shiinaha mowqifkiisu waa cad yahay, waa uu ka soo horjeedaa in waddanka Iiraan faragelin lagu sameeyo. horena waxay u cambaareeyeen in la afduubay madaxweynihii waddanka Venezuela. waa gartay dhinaca arrimaha Gaza haddaanu eegno musiibada bani'aadamtinimo ee Gaza waxaa la sheegayaa in ay weli kasii socoto, waxaana ugu sii dheer duqeymaha Israa'iil ay hadda ka wado Gaza. kulankan Xamaas ay la leeyihiin dhexdhexaadiyaasha Masar, arrinkaas inooga waran. wararka soo baxaya oo dhan waxa weeye warar ka soo baxaya wakaaladaha wararka reer galbeedka. wakaaladaha wararka reer galbeedka dadka ay soo xiganayaan magacyadooda ma xusayaan, laakiin xaqiiqada meesha jirta ayaa waxay tahay ururka Xamaas mowqifkooda waa la ogyahay. waxa weeye xabajoojintii qaybtii hore la gaaray ilaa hadda Israa'iil wax xurmeyn laadahay, waxaana dhaqaaqira in ay joojiso duqeynta ay wado. dad badan oo 400 ka badanna waa dishay, 1000 in ka badanna waa dhaawacday. waxay ilaa hadda hortaagan tahay Israa'iil in sidii ku qornayd heshiiskii xabajoojinta in ay fasaxdo hor istaaga ay ku haysa iyo inay diideyso in gargaar la gaarsiiyo marinka Gaza. hadalladan soo baxaya ee la xiriira shirkan ay ururka Xamaas iyo Masar ay yeelanayaan faahfaahin buuxda lagama hayo, laakiin waxaa laga hadlayaa sida ay soo xiganayaan wakaaladaha wararka ee reer galbeedka sida loo dhisi lahaa maamul ay Falastiiniintu leeyihiin oo la wareega ururka Xamaas xilka kala wareega. laakiin wararkaas oo faahfaahsan waxaan ka sugaynaa kaliya oon ka qaadanaynaa dhinaca Xamaas. dhinaca Masar warkii ayada ku saabsan ayaan ka qaadanaynaa. wararkan la soo disanayo lala soo ordayo xaqiiqadooda waa adag tahay in la ogaado. waa gartay ugu dambeyntii haddii aan dib uga noqono xiisadda Iiraan, waxaa lagu soo waramayaa in wadatashi uu ka socdo Mareykanka. maxay ku saabsan yihiin kulamadaas? kulanka madaxweynaha Mareykanka uu la yeelan doono guddiga amniga qaranka ee waddanka Mareykanka, albaabada ayaa u xirnaan doona. qaraarada ay qaadan doonaan iyo khiyaaraadka ay ka hadli doonaanna waxaa ugu mudan Iiraan wixii laga yeeli lahaa iyo in fursad la siin karo wada hadallo iyo in ay tahay in tallaabo militari la qaado. barnaamij gaar ayaan ka sameynay. laba dhinac ayaa maamulka madaxweynaha Mareykanka talo siinaya. dhinac waa madaxweyne ku-xigeenka oo raba in la riixo in wada hadallo arrimahan lagu dhameeyo. dhinaca kalena waa wasiirka ama xogayaha arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka oo riixaya in tallaabo militari la qaado. labada dhinac dhinacu u leeco anaga dhinacu u leeci doono ama dhinaca uu qaadan doono taladiisa anaga ma naqaano, laakiin dhinaca Iiraan waxa ka soo baxaya wax sahlan maaha. Iiraan inay diyaar garoobayso u digayso wadamada dariska la saldhigyada militari uu Mareykanku ku leeyahay ee leedahay. Mareykanka haddii uu na weeraro in saldhigyadaas la duqeyn doono. Mareykankana waxaad moodaa in uu taxadar muujinayo oo bilaabay saldhigyada qaar inuu ciidamadiisa ka qaato, talana ku bixiyay in ciidamadaas laga qaadi doono. waxaas oo dhan waxay muujinayaan sida khabiirada qaar ay hadal ku dhigayaan Mareykanka in tallaabo xoog leh uu qaadi doono wax ay tahayba. tan kale Iiraan dhankeeda diyaargarow xoog leh ayaa ka jira. mas-uuliyiintii ayaa dadka isu soo baxaya tirada badan la u sheegaya siday u diyaarsan yihiin markay noqoto ciidamadii cirka iyo difaaca cirka, markay noqoto ciidamadii amniga, markay noqoto ka hadlidda iyo qaqabashada. wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Iiraan ayaa ka hadlay inay gacanta ku dhigeen fariimo iyo lacago lagu qarash gareeyey rabshadaha oo ay dowladda dibadda ay ka dambeeyaan oo ay ka shaqeeyeen arrintaasna ay waqtiga ay munaasab tahay soo bandhigi doonaan. marka xaaladda Mareykanka iyo shirkiisa gaarka uu leeyahay iyo go'aanka soo bixi doona lagama sii hordhici karo, laakiin waqtigan u deynayna. waa hagaag aad baa u mahadsantahay Maxamed. waan arki doonaa arrimahaasi wixii kusoo kordha daawadayaaladii kana aad baa u mahadsantihiin daawashada barnaamijka wararka caawa. inta ayaa barnaamijkani kusoo gabagabaynaynaa. waxay naga xasuusinaa
haddii aad ku cusub tahay HBN Online TV ama hore aadan ugu xirnayn kusoo biira barahina kala duwan ee internetka aan ku leenahay inta ku kulmi doono barnaamijka midka ku xigo insha Allah nabadgelyo